wafdigan ka socday dowladda Eritrea oo muddo 2 maalin ah ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa galabta waa xeebta liida geeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo waliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga si uu arkaan horumarka amni ee ka jira Muqdisho iyo sida shacabka Soomaaliyeed ay waqti qurux badan ugu qaadanayaan xeebta waxayna qayb ka ahayd soo dhaweynta loo sameeyay mas'uuliyiinta ka socday xukuumadda Asmara ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo madaxda ka socotay dowladda Eritrea ayaa halkaas ku yeeshay kulan isxaq waraysi ah oo ahmiyadiisu ahayd in la xoojiyo xiriirka labada dal si ay isaga kaashadaan horumarka dhaqaale iyo nabadgelyo ee Geeska Afrika. wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Osman Saalax ayaa la dhacay bilicda iyo quruxda xeebta liido isagoo dowladda Soomaaliya shacabkeeda ku bogaadiyay sida uga wada shaqeeyeen amniga iyo kalsoonida wada shaqeynta ka dhaxaysa. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale galabta xeebta liido waqti kula qaatay shacabkii ku sugnaa waxaana ka xog wareysanayaa xaaladda ay ku jiraan iyo waxyaabaha ay doonayaan inay dowladdu ka shaqeyso si loo helo Soomaaliya nabad iyo barwaaqo ah. shacabkii halkaas ku sugnaa ra'iisul wasaare Khayre ayaa su'aalo caadi ah isweydaarsanayay isagoo uga jawaabayay su'aalaha uga imaanaya dadkii shacabka ee ku sugnaa kuwaas oo ka muuqatay kalsooni sida ay ugu faraxsan yihiin inay arkaan ra'iisul wasaarahooda si ay ugu sheegtaan waxyaabaha ay doonayaan. waa qayb ka mid ah qorshaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu ku xogogaanayo shacabka Soomaaliyeed waxyaabaha ay tabanayaan si loo xoojiyo wada shaqeynta shacabka iyo dowladooda intii uu joog lahaa xafiiskiisa sida uu horay u ballan qaaday. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.